السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horumari naftaada ugu horeyn ma jiraan adduunkan wax sugan ee aanan isbedelaynin waxaan ku jirnaa isbedbedel joogto ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay sidii loola qabsan lahaa isbedbedeladaas oo aan isu horumarin lahayn si aanan uga harin tariinka nolosha culeysyada nolosha soo wajaha waa ay fara badan yihiin waxaan u baahannahay in aan barano sidii aan ula dhaqmi lahayn ama aan uga gudbi lahayn culeysyadaas wax kasta waxay leeyihiin sal iyo aasaas ama tiirar haddaba waxaa maanta halkan ka soo gudbinayaa 5 qodob oo aasaas u ah horumarinta ee si degan iiga dhageyso qodobka koowaad waa inaad istaqaanaa adiga qofka waa inuu isweydiiyaa su'aasha ah kuma tahay maxayse awoodaa naftaada ee xirfad u leedahay hadii uusan qofku su'aashaas jawaab rasmi ah uusan u helin waxaa ku adkaan doonta inuu ishormariyo haddaba is aqoonso adiga oo isweydii marka hore kuma tahay qodobka labaad waa inay ku caddahay waxa aad ka damacsan tahay noloshaada inaha ulajeedkana waa qofka inuu leeyahay qoraal cad oo cadaynaya hadafka uu leeyahay kuwa dhow iyo kuwa fogba hadafyada fogi waa kuwa lagu higsado gaaritaankooda sanado sidoo kale hadafyada dhowi waa kuwa lagu higsado gaaritaankooda muddo sanad iyo wax ka yar taasi macnaheedu oo ah inuu qofku leeyahay meel uu ka duulayo og yahayna meesha uu u socdo laakiin hadduusan ogeyn meesha uu u socdo iyo meesha uu haatan joogo waxaa cad inuu ku fashilmay is-horumarintiisa haddaba hadaf u yeelo noloshaada oo noqo qof hadaf leh waayo noloshu haddaysan hadaf lahayn dhadhan ma lahan hadafkaagu ugu weyn ha noqdo sidii aad u raaligelin lahayd rabbigaaga qodobka saddexaad waa inaad taqaanaa waxa aad ka rabtid ama aad ka damacsan tahay naftaada aadna ka dhaadhicin kartid waxa aad damacsan tahay sidoo kale weydiin kartidna waxa aadan fahmin haddaba waa lama huraan inaad horumarisid xirfadaha kaa kaalmaynaya qodobka afraad horumari hawlahaaga wax kasta aad samayn karto ama aad isleedahay maalintaa waad qaban kartaa qor oo u diiwaan geli sida ay u kala horeeyaan una qabo markasta hawsha ugu muhiimsan ku horumari qodobka shanaad xoogga saar hal shaqo ama hal mawduuc waxyaabaha ugu badan ee hawlahaaga ama noloshaada dib u dhigi kara ayaa ka mid ah in hawlo badan aad hal mar wada bilowdo marka aad wax qabanayso dhowr shaqo ha isku wada bilaabin ama xitaa mid qabiyo ah mid kale ha bilaabin hal shaqo xoogga saar marka aad dhamayso kadib u gudub kuwa kale waayo maskaxda waxa ku imaanayo daal fara badan markay fikrado badan ay iskugu darsamaan muhiimadda si hal shay waqtiga ka soo dhamaato mid kale u gudub ugu dambeyn waxa jiro arrimo fudud oo aan moodayno inay nolosheena waxba ku soo kordhin oo haddana meel sare na gaarsiin kara waxaase muhiim ah inaan ogaano in caadooyin yaryar ay samayn karaan guulo waaweyn haddii aan joogtayno haddaba joogtee caadooyinka ama dabeecadaha wanaagsan ee noloshaada hore u sii wadi kara wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu